qofka shaybaarkii waanu ka qaadnay qof suspect ayuu ahaa way soo gudbiyeen cusbitaaladu waxaanu markii uu dambeeyay yeeshay stroke ama xanuun waxa la yiraahdo qalalka waxa la yiraahdo faaliga deedna qofkii wuxuu ahaa qof aad u xanuunsanayo daa oo faali ku dhacay waa uu geeriyooday laakiin ma oran karno waxa uu geeriyooday coronavirus ilaa uu shaybaarkaasi aynu dirno oo uu soo noqdo shaybaarkii waan ka qaadnay laakiin inaga wuxuu inoogu jiraa qof shaki ah marka uu shaybaarkiisu soo noqdo wuxuu noqon karaa negative waxa uu noqon karaa positive hadduu positive noqdo waanu idinla wadaagi doonaa wuxuu geli doonaa qof xanuunkii qabay oo dhintay haddii aanu noqonna wuxuu noqon doonaa qof negative ah oo u dhintay dee xanuunada kale marka in la yidhaahdo xanuunkaas uu dhintay weli waa degdeg lagamana caddaynin marka qofkaasi waxa weeyaan sida aan kuu sheegay qof xanuunsanayay oo soo maray cusbitaalada privateka ay soo gudbiyeen ICU-ga cusbitaalka weyn soo gudbiyeen ugu dambeyntiina geeriyooday laakiin lahaa calaamadahaas sida saardii sheegay xanuuno badan baa hay'adda World Remit ballanqaad bay samaysay qaybtii ugu horeysay ee qalabka ay ku deeqday qaybtii ugu horeysay way soo gaadhay stoorka dawladda waxaana soo gaadhay 100,000 oo face mask waxa kale oo aan la socdaa in hawsha inteedii kale oo ah intii badnayd ee qalabkaasi uu ganacsadahaasi khayr ilaahay ha siiyo ugu talagalay inay ku soo jirto jidka oo la soo rarayo China ay ka imanayso laakiin intii imikana soo gaadhay waxay 100,000 kuna way yaalaan lama qaybin wali waxa la sugayaa marka ay isku wada timaado deeqda uu bixiyay ganacsadaha reer Somaliland ilaahayna khayr ha siiyo haday noqoto dhinaca hay'adaha caalamiga iyo kuwa UN taba wada shaqayn baanu lahayn hay'adihi aan wada shaqaynta lahayn qorshayaal ayay sameeyeen qorshayaashii waa ay socdaan si guud ayaanu balaan u sameynay balaankaas oo aanu gudbinay marka balaanka aan gudbinay qolo walba wixii ay ka tari karayso waa ay soo gudbinaysaa ilaa imika waxyaalaha soo gaadhay waa waxyaalo kooban waxaanay ugu badan tahay hay'adda WHO oo aanu ka helay mishiinkii shaybaarka lagu sameynayo imika uu processkiisii socdo dhowrka maalmood soo socda filayno in uu bilaabi doono hawshiisii waxa kale oo hay'adda WHO naga soo gaadhay tababaro ay bixisay waxay naga caawisay dadka jooga entry point-yada oo ay iyadana aanu la siiyay BRDM waxa la yiraahdo ay ku shaqeeyaan hay'adda UNICEF iyada qudheeda waxa aanu la sameynay inay waxyaalaha la yiraahdo PPE-ga ay soo iibiso laakiin wali kamaanaan helin UNFPA sidaas oo kale marka qorshayaashii baa socda wax badan oo wali ina soo gaaray ma jiro laakiin waxa aan la wadnaa qorshayaashii waxaan filaynaa wiigaga soo socda inaan heli doono deeqaas ay soo gaari doonaan insha Allah wax cusub oo inagu soo biirayna ma jiro dadka aynu xanuunka ka helay waa 6 qof dadka xanuunka ka bogsaday waa 2 qof dadka karantiinka inoogu jira waa 14 qof dadka aynu 24 saacadood ee u dambeeyay screen garaynay waa 1378 qof oo goobaha kala duwan amba meelaha kala duwan ee xuduudaha ka soo galay dadkaas oo aynaan ku arag wax calaamada ama wax dhibaato ah ama wax u eeg xanuunkii waxa aan bulshada u sheegaynaa in ay diyaar yihiin cusbitaaladii aynu ugu talagalnay haddii loo baahdo inay soo baxaan cases u baahan in cusbitaal la dhigo oo ay 6 gobol bay noogu diyaarsan yihiin waxaan bulshada u sheegaynaa in wasaaradda horumarinta caafimaadku ay heegan ku jirto oo uu soconayo inkasta oo xaalado soo kordhaya aanay jirin haddana diyaar garowgeenu sidii hore inuu ka sii xoog ganaado mooyaane hoos ugama dhacayo